السلام عليكم ورحمة الله. سؤاشن waxay tiri waxaa rabaa inaan iska rido man boobs macnaheedu xawadka halkan hilibka ku badan ama chest hilibka halkan iga badan sidee iskaga ridi karaa. Horta midda koowaad mar badanna waa ka hadlay xawadka qura ama meel qura hilib lagama ridi karayo maxaa yeelay jirkeenu wuu isku xiran yahay. Haddaa ina hilib meel inaa ka ridi rabtid waa inaad jirka dhanka wada ridaa. Tusaale xawadka haddaa sheegtay ka soo qaad waxaa rabtaa inaa halkan hilib iska ridid waa qasab inuu jirka kale hilib ka dhacaa. Ma samayn karaysid wax la samayn karayo ma jirto oo halkan kaliya hilib ka ridaya, laakiin waxaa samayn karaysaa inaad dhistid halkan kadib diet wanaagsan aad gashid si hilibku kaaga dhaco. Caloosha tusaale haddaa rabtid inaad calool iska ridid waxaa weeyaan inaad caloosha diet wanaagsan u gashaa orod samaysaa si hilibku kaaga dhaco halkanna hilibka kaga yaraado. Meel walba jirkaagana waa sidaas. Marka ma jirto wax la dhaho hal meel kaliya hilibka ridaya ama hal meel hilibka iga badan yahay meeshas kale inuu iga dhaco ma rabo. So marka waxaa ku leeyahay almiitada wada samee jirka dhan wada almiitaysi. Meesha rabtid hadda Google garee waxa lagu leeyahay ma jirto. Anaa mar hore isku dayo dadka dhan waxa arki lahayd adduunka dad waxa arkaysa calool kaliya leh laakiin hilibka meelaha kala caada ka ah. dadkaas oo idila caloosha iska yareen lahaa dadka xawadka kaliya ka buuran oo jirka kale hilibka lehna iska yareen lahaa halkan. Marka ma jirto shortcut ma jirto wax la dhaho jirka dhan inaa wada goysaa weeyaan si hilibku kaaga dhaco. Marka waxaa filaaya su'aashaada inaan kaaga jawaabay. Haddaa channelka ku cusub tahayna subscribe asxaabtaadan la wadaag.